nin aan saaxiibanahay Soomaali ma ahayn baanu meel markaza wada joognay carrada gaalada maalin duhurkii buu dumar wuxuu akhriyay ana xafiis fadhi Cumdatul Ahkaam wuxuu akhriyaa kitaaba Cumdatul Ahkaam wala yaaba in badan idin kamid ah waa kitaab fudud la wada yaqaan xadiis baa ku daba gadoomay ninkii oo dhidid ku yaala kurbaysan xafiiskii ugu soo galay waan naxay waxaan ku ninka maxanuunsan yahay maxaa dhacay nin waxba ilaahay tusay buu maanta maxaa dhacay waxaan fiiri buu waxaan kaadi tuu taabtay kasaan ku yiri waxbaan qornay war akhri waraan afkayga ma soo marin kare waxaan fiiri waxaan wuxuu yahay waa yaabo waxaan waa xadiis la leeyahay fiiri بلوغ المرام بوها كتابها مركا محس وين يا حديث كيبان فيري وعادي عارك ما حد يبغى يشران كوري هذه آخر يقول واحد وحنقول حديث كمان آخرية هل كان ربتكوا واحد شيء يسألون ما حليا ما أرجع إيه تعبوا وحال كان فيري هل كان ما حد يبغى كوري دي ما يتعب وما أنا وش يقول حنقول محاضر ملايسي هذا فهمت وروح النبي وكم هذا اللي كراوير عيتا حد عراتن كسنة حنقول ساعة عراتن كتر بكاش كسيدايدي عارف كل سو مريكير حديثكم حال أن يرجع أحدكم بيمينه في أهله آثم له من أن يكفر عنها نينكو حاسكي سي غوري سينوي ما سو غفور كتورا يو عاريسانو waxaan ku dhaartay inaan la hadlaynin oo afka tuuro oo si jeedsado oo dhaartaydii ma jibinayeen baa ka dambi badan inuu dadkiisana la hadlayo reerkiisa iyo xaaskiisa kafaara gudna sameeyo dhaarta jib kafaara gud samee taasa kaaga dambi yar dhaart waan dhaartay oo afkan tuuraya xadiiska intaas ka hadlay yari jadi min wala jaw bela noqotay biyadiina gacanta dhaarta hayna gacan midig bela noqotay ninku xaaskiisa oo gacanta midig geliyo saasay la noqotay ninka waxa soo dhigay nabigu waxaan inaan naxdin iyo qosol baan u dhaxeeyo marka mar waan farxay oo inuu soo marayo intuu dhaafo haweenkii u tago isoo waxa akhris uga dhigi baa la yaabay baan ku farxay marna waan naxayo war ninkan sidan ee dadka dala wuxuu akhriyay tolow kani تبحث فسادين دورابا نسري وحنقول ورصاص ما هي ماشان فيري باب الايمان داروي يمينه قعن مدي ما داروي يرجنا من ولا جماه لجو كما حدايغي وي انو كو ادكايست دارتي وي ان كنتون نحي وكرسي ديب ugu fariisto qaboobay yuxuu 10 maanta ma akhrin kare xaalad ba ku jiray hal iga fasaxo حالات waxaa ku dhacay inhiyaar oo isku dhaxyaa waxay markuu joogaba uu shahaadad markii daba ku dhacay digashaw kaara ku waxa ku dhacay waxaan is arkaabu yiri anigoo intaan tagay meeshii wixii sheegay waxay markaa joogaba ara wixii baa soo bixi wariyaa warada waxa dheerayd baa ka dhici lahaa halkan